nin xerta ka mid ah asagoo meeshaas jooga ayaa salaadii iga tagi rabtuu yiri markaasaa sheekha tuko salaad uu yiri xamaru jooga meeshuu ninkan ceelbur waay markaasaa inta caray sheekha warkiisa inta maqlay oo cararay wuxuu yiri salaadii tukado alxamdulillah sheekha salaad uu xasuusiyo yiri eeg marka karaamada meesha ku jirta baleeg mar waxa weeye horta inuu nadar raxmaaniya weeyaan waxay qofka waa ilaalsanayaan waxay fiirinayaan xaaladda uu ku sugan yahay cibaadada asagoo ka fog ayaa salaadii la xasuusinayaa oo lagu amraya inuu tukado mar waxa weeye codkiisa ayuu wuxuu maqashiiyey asagoo xamar joogay qof ayuu codkiisii maqashiiyey inta la hadal yiri marna waa arkay inta arkay buu haddana la hadlay qof ceelbuur joogo inta meesha ka arkay asagoo xamar jooga uuna la hadlay markaas uu ilaalinayo cibaadada soo ilaalinayo daliil u tahay sheekha Allah ka raadi noqday karaamaadkiisa waxa kamid ahaa waxyaabaha yaabka uu ku leeyahay qof ku xun wax xun soo sameeyay oo cisyaan haduu u yimaado xalay ilaahay u toobadkeen dhihi jiray wixii uu sameeyay inta kala hadlo oo wuxuu ilaahay u toobadkeen waxa uu sameeyay waxa dhacday maalmaha kamid ah gabadha u timid gabadha sheekha u timid gabadha waxay ahayd xogo ilmo raadis ahayd oo waxa ka soo daaday dhalmadii waxaas marka in sheekha ilaahay u baryo bay damciisay marka ay sheekha u timid arrintu sheegtay wuxuu yiri habeenadaas ninkaaga oo guriga kugu yimid gurigiisa ma cirisay sitira waa sameeyay hadii loo sheegay habeenkaas iyo waqtigaas waxa ma sameeyay waa sameeyay tireen kalaad ma jirtay moogta ilaahay ka boqoy ha u noqon arrinta daba sameeynin waxyaabaha khayrka ka xiraya oo ubadka iyo waxa rabtid oo raxmadda ilaahay ka hor istaagay cisyaanka noocaas oo kala way ilaahay u toobadkeen oo ilaahay u soo noqo annagana ilaahay ku baryayna markaas waana la aqbalaya laakiin ninkaaga maslaxa inta ilaahay ku toobadkeento ku yiri qofku u yimaada xaaladdu ku sugan tahay xaalad xun tahay horta markuu u horeyso waxa la waaninaya qofka waa la hagaajinaya kadib baa waxa la leeyahay wixii markaas uu u yimid laga hadlaya wixii uu u yimid markaas sidii baa laga hadlaya Allah ka raadi noqday waxa dhacday maalmaha kamid ah sheekh raamaadkiisu wax la koobi karo maahan aad u badnaayeen wuxuu yiri khaadimiinta kamid ahaa gaari raran oo uu number 50 meelahaas ka keenay oo qudaar ku raran oo mowduc u soo waday baa ka rogmaday gaariga gudoomay gaariga markuu gudoomay meel duur jidka bartiisa maraya moogta meel dhax u maraya gaariga waa yiri ina sheekha la khadaabo oo la hadlo meel inta jidka gees ka maraya wuxuu yiri sheekha waxa uu yiri hadaad wali tahana awliyada ilaahay waxaan ma xiraane bahalkan toosi aan ku keenay hadaadan wali ahayn hada lugoynin waa ka tagaynaa uu yiri intaas marka iri waxa maqluur wax biriq amoodid dhacay buu yiri gabow yiri markaas inta soo baraarugan siri baawurka fiiro waaba yaa meesha jiifay وانا ردن yahay وانا taagan yahay waa soo kaxistiro kaasa gaariga keenay meesha keenay hawshaas ay qabanayaan waa la khidmeynayaan ardadooda mujida ajiib waxa kale oo yaab u kula sheekheena xirtiisa rakamid ana muxuu ahaay ka sugnaaday asagana lagu arkay habeenada kamid asagoo khidmo ku jira iyadoo meel la joogo oo khidmo inay waxa ilaahay un karaamo ka muujinaya ahayd rag khidmeynaya waxa ka lumay hilbe karinayeen hilbe la karinayay marka bahal waydaan oo inta lagu duro geedka weyn fuusta wax lagu karinaya marka digsiyada waaweyn bahal waxa jira lagu duro hilibka inta lagu suro looga soo saaro marka waa kulul yahay bahalka moogtahay marka bahalka markaas iska daba wareegayaan meeshii iska daba wareegay sheekhu marka xirta meelay kala joogan kuwaas uu tagay waa soo noqonaya kuwan marka kuwana uu khatarsan moogta ku raashiga laga sugayay way waxana marka waa la soo daaheen wixii markaas wuxuu ku yiri maxaa ku dhacay markaas waxay yiraahdeen sheekhu waxa nagu dhacday markaas wuxuu adigu mayna qaadiriye ahayn adigu qaadiriye rasmi ma hidin miya wuxuu yiri ma dhageysanina miya sheekhu weys wuxuu yiri wama min dariiqi jilaani نجا من حر النيراني طريقي جيلاني قفكي مراه كليل نار يال كليل كود إلهي واكن نجيا
adinka marka qaadiri rasmi ma haydin miya seenaar kuleel dab uga baqaysiin uu yiri ma gacanta gelisiin waxaan masaajid gumi kara haddaa qaadiri rasmi tiin inta baxay marka wuxuu sameeyey gacanta inta la galay gacantiisa uga soo saaray maraqii uu ku dhex jiray hilbiga gacantiisa uga soo saaray wax gubashay adaa sheegaysidba marka wuxuu aaminsan yahay dariiqa jilaani waa la garanayaa moogta dariiqa jilaani wuxuu ku dhisan yahay alkitaab wa sunna ilaahay subxaana wa tacaala in la raadigeliyo oo lagu raadigeliyo waxa asaga uu faray in lagu raadigeliyo in lagu caabudo sida ilaahay uu faray dariiqadana waxay ku dhisan tahay toddoba rugni waxay ku dhisan tahay kitaabka iyo sunnada waxay ku dhisan tahay in qalbigan wax la isku qaban oo qofka camalkiisa iyo wixiisa uu ku mashquulo ummadda ilaahayna uu nabadgeliyo waxay ku dhisan tahay markii lagu xadgudbo inuu samro oo uu iska dhaafo oo u cafiyo waxay ku dhisan tahay sakhaawa inuu muxuu ahaaye bixiyo oo wuxuu muxuu ahaay cilmiya ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay ma garanaysaa ikhlaas iyo waxay ku dhisan tahay ilaahay loo baraxtira camalka baahi ilaahay subxaana wa tacaala loo qabo faqri ilahay laisku baahay inta kalena laga deeqtoon yahay ay dariiqada ku dhisan tahay sharciga in loo qiirooda oo ilahay sharcigiisa loo qiiroodo oo sharciga ilaahay addoon loo yahay ilahay subxana wa tacaala sharcigiisana si rasmi ah loogu hiliyo waxa kalena aan aado loo yeelin oo aan la fiirsan tahay qofka hadduu saas sameeyo tatanazalu calayhim ilmalaa'ikatu allaa takhaafu walaa taxzanuu adduunyada intuu jooga aakhira intuu jooga taas loo gelayaa soo ma naar iyo kuleelka addunya akhira ku gumi mayso marka taasuu og yahay wuxuu yidhi jilaani sheekh uweys wuxuu yidhi waman bidariiqi jilaani naja min xarri niiraani kama fi lcahdi bayaani waja'a min nacuutillah qof jilaani waddadiisa dadkii maraan naar ilahay waa ka najeeyey maxaa marka uga baqaysa asuu dabkii inta baalkii gacanta geliyey oo waxa gubad iyo waxaas ma jiraan dadka ilaahay uu ka raadi yahay makhluuqay u arkaan khaaliqay u arkaan isagama darna makhluuq wax saameynaa inay leeyihiin uma arko wuxuu u arkaa dabkan inuu yahay wax ilaahay subxaana wa tacaala uu sameeyey hadduu rabana gubidda uu ka qaadi karo hadduu rabana uu ku dayn karo ee asaga quwo uu leeyahay iyo dabci uu leeyahay ku gubi karinba saa darteed ka baqi maayo ilahay rumaysan yahay kulluhu lilah wax walba ilahay iskale adigana addoona ilahay u tahay dabka addoonu ilahay u yahay si rasmi haddaa ilahay u rumaysid hawadaa ku ordaysaa dhulkaad muxuu ahay biyaha ku dhex soconaysaa dabkaad dhex maraysaa wax ku celinaya male maxaa yeelay kulluna biyaha iyo dabkay anaga lasu keenay makhluuq ilahay aan nahay bani aadamkana makhluuqa dhan waa loo sakharay walaqad karamnaa bani aadama laakiin aadam wixii loogu talagalay sameeya waxaan lakugu talagalay anaga waa naqaanaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cala lmunkari watu'minuuna billah in khayrka aan farno shartana aan ka nahyino dadka laakiin aan iska bilaawno ibda' binafsik anaga aan iska bilaawno haddaan taas samayno wixii lakugu talagalay oo ilaahay nagu sharfay ayaan helaynaa khayra markaa makhluuqna ka baqi maynaba haddiise annaga nafteenna aan ku mashquulno wixiina loo dirsaday waxaan ahayn oo hawl kale aan galno dabaana gubayo maahane jiracaana qaniinaya markaasa dhimanayna oo nafta noo keenaya moogta waata hadda waxaan haysta dhibaatada ummadda caalamul islaam haysta iyo waxa ay soo mareen islaamka awoodda aragtay iyo quwada aragtay iyo sharafka aragtay lahaa saa arag caalamka u galay kuma gelin sida hadda annagu aan nahay sida hadda aan nahay kuma gelin caalamka wuxuu soo maray iyadoo